aynu ku bilownay waxaa maanta madaxtooyada Kenya kulan gaar ah ku yeeshay madaxweynaha cusub ee dalkan Dr. William Ruto iyo dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. qoraal kooban oo la soo dhigay barta Facebook ee madaxweyne Ruto ayaa waxa lagu sheegay in labada dhinac ay dardar gelin doonaan dhaqangelinta guddiga iskaashiga ee wadajirka waxaana taasi ay sare u qaadi doontaa ayaa lagu yiri qoraalka ganacsiga qaadka waxayna fududeyn doontaa isu socodka labada wadan. waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo waliba tan geeska Afrika. dhanka kale barta Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa iyana waxaa lagu shaaciyay isla hadalkaas mid u dhow oo ah in ay labada madaxweyne ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ayna sidoo kale isla soo qaadeen qodobada xoojinaya iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo midka siyaasadeed ee labada dal iyagoo isla gartay baa lagu yiri qoraalkaasi in la sii ambaqaado heshiisyadii hore loo gaaray gaar ahaan fududeynta socdaalka dhiirigelinta dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo qaar kale. waa tahay isla magaalada tan Nairobi aynu sii joogna ee madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ayaa amar waxa uu ku bixiyay in la joojiyo lacagaha lagu kabo shidaalka iyo galeyda si loola tacaalo sicir bararka saameeyay waxyaabaha nolosha daruuriga u ah sida cuntada iyo shidaalka. madaxweyne Ruto ayaa waxa uu sheegay in kabkaasi uu yahay mid qaali ah isla markaana keenayo in badeecadaha dawladdu ay kabto suuqa laga waayo. dawladda Kenya ayaa in muddo waxay ka baysay shidaalka oo biri ugu dambeeyay qiimihiisu uu sare u sii kacayay. waxaana go'aanka madaxweynaha cusub la filayaa in uu sare u qaado qiimaha shidaalka maruu madaxweynaha u qiildayay sababta uu joojinayo kharashka lagu kabo shidaalka ayaa waxa uu yiri tallaabooyinkii la doonayay in wax looga qabto sicir bararka ma noqon kuwa midho dhal ah. kabista shidaalka oo keliya canshuur bixiyaashu waxa ay ku kharash gareeyeen lacag dhan 144 bilyan oo shilinka Kenya ah taa oo ka dhigan 60 bilyan oo shilin in lagu bixiyay kabista shidaalka 4 bilood ee la soo dhaafay oo keliya. haddii kabista shidaalka uu sii socdo ilaa dhammaadka sanad miisaaniyeedkan waxaa canshuur bixiyaashu ay ku kharash gareyn doonaan 280 bilyan oo shilin oo u dhiganta miisaaniyadda guud ee dawladdu ku bixiso mashaariicda horumarinta. intaa waxaa dheer waxaa jiray isku day lagu kabayo galeyda intii lagu guda jiray ololaha doorashada. mashruucaasi oo keliya waxaa ku baxday 7 bilyan oo shilin muddo 1 bil gudaheed ah taa oo aan wax saameyna ku yeelan sicirkii galeyda. marka laga soo tago in kabitaanku aad qaali u yahay haddana kabitaanka waxyaabaha daruuriga ahi waa mid u nugul wax isdabamarin waxa uuna jahawareer u keenayaa suuqyada oo waxay abuurayaan hubaantilaan ka jirta suuqa sida in la abuuro gabaabsi ku yimaada badeecadaha la kabayo including artificial shortages of the very products they seek to subsidize. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo khudbadii shalay uu ka jeedinay halkaasi ku soo qaaday arinta shidaalka. haddaba saameynta leg ayaa ka dhalan karta dhaqaalaha laga jaray shidaalka. su-aashaas iyo kuwo kale waxaan weydiiyey Bilow Aadan Kero oo ah dhaqaalayahan ka faalooda arrimaha dhaqaalaha ee siyaasadda geeska Afrika. waxaan marka hore weydiiyey waxay ka dhigan tahay in la jaro dhaqaalihii lagu kabi jiray shidaalka. haddii ay ka dhabayaan oo ka qaadaan kabista shidaalka waxaa isla markiiba arki doontaa sicirka shidaalka inuu aad kor u kaci doono. hadda 140 shilin baa la gadaa litirkii dieselka kabista ilaa 65 shilin baa ku jirta marka 212 buu noqonaya. petrolkana saas oo kale 200 buu dhaafaya. marka shidaalka aad buu qaali noqon doona wuxuuna saameyn doonaa nolosha oo dhan maxaa yeelay gaadiidka ganacsiga warshadaha meel kasta oo loo isticmaalo shidaalka. marka saameyn aad u ballaaran buu yeelan doonaa haddii kabista ay dawladda ka qaado. haddii meesha uu ka baxo kabista dawladda ay ka baysay shidaalka dadka caadiga maxay ku waay doonaan? horta haddii kabista meesha laga saaro waa in bedelkeeda la helaa. macquul maaha inuu dawladdu ay tiraahdo anaga ma kabista ka horna marka waan ka qaadaynaa shidaalka 200 iyo 300 ha noqdo. marka aniga khaasatan waxaan aaminsanahay in ay saas yeeli karin. dhibaatooyin fara badan oo xagga nolosha sicir barar baa ka mid ah. sicir bararkaas wuxuuna saameyn doonaa nolosha dadka hadda waxyaabaha laga cabanaya ugu waaweyn waa nolosha qaali noqotay. runtii dadka masaakiinta kuma noolan karaan waddankan hadda ay ku socoto. marka waxaa dhibaatooyin badan baa ka ratimaya haddii dawladdu ay maaragtay kabista qaadoona bedelkeedaan la keenin. anigu waxaan arkaa runtii in waxbaan la gadan karin because soo saarka waddanka oo dhan shidaalka lafdhabarka wey. marka dadka aniga noloshooda ayaa aad qaali u noqon doonta. nolosha waddankan hadda waxyaabaha madaxweynihii hore Uhuru iyo dawladdiisa lagu qacsan waxaa kamid ah noloshii qaali noqotay. marka waxaa la filayay nimankan ay ballan qaadeen intay campaignka ku jireen in maaragtay shidaalka 100 shilin ay ku soo celin doonaan ama maaragtay sicirka raashinka
raashinka iyo waxyaabahaas oo dhan marka nolosha qaali way noqonaysaa aad iyo aad marka dhibaato aad u badan baa ka ratimaya haddii ay qaadaan marka arrintaas waxay sare usii qaadaysaa soo ma ahan miciishadii markii horeba aadka qaaliga u ahayd aad iyo aad miciishada wadanka aad iyo aad bay qaali u noqon doontaa dadka saboolka wadanka ku noolaa dhibaatooyin aad u fara badan bay ku noqon doontaa haddii la qaado kabista dowladda haddii ay tahay midda suuqa jaangoynaysa kabistii ay kabaysana meesha ka saartay taa markasoo culaysun kuma ahaanayso rayidka iyo ganacsatada marba haddii ay ka saaraan kabista shidaalka sicirkana iyaga ay jaangoynayaan waxay noqon doontaa in dowladdu ayna ka dhigin shidaalka sida ganacsiga kale oo dhan oo madax bannaan oo demand and supply amaba sicirka uu suuqa ku xiran yahay laakiin waxaan aaminsanahay inayna jaangooyinka ay weli doonaan because waxyaabo fara badan baa jiraan oo dowladda dhinaceeda oo ay ilaa hadda ay reebi haysa oo sicirkan lagu jaangoynaya lagu reebahay waxaa kamid ah nimanka shidaalka keena waxay fiiriyaan waxyaabo fara badan oo qarash ka galay waxaa kamid ah masalan sarifka doolarka hadda ay leeyihiin waxaan ku gadanaa 125 shilin dowladduna waxay ku xisaabsanaysaa 116 marka dowladda inay jaangoyso ay think taasu kama maarmi doonaan waxay ka baqayaan haddii ay qaadaan faa'iidadu hadda ay saartaan nimanka shidaalka keena ilaa iyo 11 shilin waxay ka dhigi karaan 20 shilin ama 30 bay saaran karaan faa'iidadoodii marka taasna dhibaato kale keenaysa marka inay sicirka qiimihiisa ay jaangoyaan inay ku dhaafi doonaan baan u malaynayaa waata marka maxaa u furan marka dowladda inay samayso dowladdu waxay yeeli kartaa in canshuuraha iyo waxyaabaha lamidka oo shidaalka saaran in laga qaado ama laga yareeya wadankan qiimaha shidaalka oo hadda 140 dieselka ama 160 oo maaragtay petrolka ugu yaraan 50 waa canshuuraha dowladdu weliba 8 ama 9 nooc oo canshuur baa saaran litarka shidaalka markaad gadanaysid oo kala duwan marka dowladdu kuwaas oo dhan bay qaadi kartaa ama yareyn kartaa hadday yareysa مثلا دكابست وما ببعنبه هدي دولته أي قاد مركز كاد الجرا وهو أنشور تاسو بقولك بس كنتم بيسارنيا مركز أيضا الهارين يعني كابست